الرحمن الرحيم إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhamaanteen mahad labaad waxa la madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonka sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadhno aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiib ah la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hal la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run hal laga dhigo hal rumeey taas baa inaga soo ku soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nimid idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arintu waxa ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaan خاصة إن ما أنت واحد ولا سوى فرصة وحاول أن تلاوي جيران ما أنت لسه أفكار كره إنه هالكي أفضل كل شيء كره أقول له إنه كل شيء كرهنا أذك أنا وحالي هذا معي إلى حالي ما ناكل الصحة نطلق قاضنا هالكي إنه كي قلنا إنه contribution إنه كتر شركة إنه بوليستو أولو بوليسنو آد بان صوتهم آد بان وهذا وحنوضنا ورب شركة يا أمد إن السوق سام حال بقولي سكرة أنت يمكن السوق ولا يشين كرة أنت واعدك حال قاد كرة مركا إذا كانوا واحد ردينا لم يدون باتين بيلا تهاي تحل بعد سعر مات وحاول مدلوا لي سنة سدي هل كانوا أنا إذا كانوا تقولون هل كانوا وظيفة فرنا إسرائيل إلهي إذن كي ترى ونكسر ترى صوبا هل كان نوع مالس كبر كيسرو بدأ بقوله قارة كانوا يتأثرنا قدر دارنا أنا مهت بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما أسكره oo noo suurtageliyay maanta waqti aan joogno aan halkan soo imaano anagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan ka wada hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa marka labaad waxaa mahad iska leh madaxweynaha Djibouti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa Soomaaliyeed uu sugu hayn lahaa
isoo keeni lahaa wanaagooda uga shaqeyn lahaa waxaan u mahadcelinayaa walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyay geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano waxaan u mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya waxaan u mahadcelinayaa wafdigay la socda ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka ah iyo marti sharafta kale halkan fadhida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkaani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhawaan ma ahayn sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaan naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadamku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haddii noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam ku horumari karo ummadda Soomaaliyeed annagoo ah ummad aad u caqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay way oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Margeelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee tageynaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fikirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galeynaa xagee caruurta ilaa waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dad halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaa wax wanaagsan ummadda u keentaan wassalaamu calaykum waraxmatullaah